وبركاته dhageystayaal meel kasta joogtaan soo dhawaada muuqaalkana iga sii shargaray meel dheer ka tuura dhowr qodob baan ka hadli doonaa waxa aad lagu mishin gareeyay maanta Muuse Bixi baa Cergaaba tagay qodobka waa ka hadli doonaa Muuse Cergaaba miyuu tagay mise meel Cergaaba ka baxsan ayuu tagay dadkan wala wadaagi doonaa insha Allah taala qodobka labaad dawlad goboleedka SSC Khaatumo oo si rasmi u joojisay magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha inaanay hub lala soo dhaxgali karin qodobka saddexaad General Saleebaan Barre Geesood oo ah taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta dawladda SSC Khaatumo oo jawaab kulul siiyay Nuux Ismaaciil Taani Nuux Baasta Macaane qodobka ugu dambeeyay ku soo gabagabeeyay waxa weeye nin lagu magacaabo jiray Ardaa oo habar awala oo markay goojo cadacad ugu joogay cagacay foodi jiray ninkaasi oo waxa weeye wiilal qalasi ah oo dhul bahantaha ay adsabo ku heleen maxay mariyeen ciqaabta ay mariyeen waa ciqaab nooc ah qodobkaasina waa xasaasi weeye si shargarey muuqaalka meel dheer ka tuura ugu horeyn horta Cergaabo Cergaabada naqaanay miyaa mise waa Cergaabo cusub oo nimankii Isaaq ahaa ay samaysteen hadday tahay Cergaabo cusub oo Isaaq gaar u leeyahay oo hadii la ku leeyahay tii ay naqaan aan ahayn iyaga iga badiya iyaga iga yaqaana oo dad waxay ka yeelayaan iyaga qusaysa laakiin hadday tahay Cergaabadii aan wada deganeen ee hartiga iyo idoorku ay wada deganaayeen ee waxa way noo kala badneed waa Cergaabada naqaan weyn Muuse mana uu tagin cid ku soo dhaweysana ma jirto waxa taa daliil waa xogeed ka haya xalay waxa shiray wax garadkii harti ee degma Cergaabo waxay maqleen Muuse soo socda marka shir bay yeesheen nimankii magaalada la deganaanay waa u yeereen waxa lagu yiri nimayow kaalaya magaaladan wani wada degana ninka Muusena laas aano ayaan isku soo dilay halkaas aan ku kala calaf qaadnay magaaladeeda xaafada aan ka deganahay iyo Cergaabo hadaan doonaysaan inaanay dhibaato ka dhicin oo khalkhal ka dhicin ninkaas uu magaalada noo soo galay hadii se uu magaalada soo galo wixii meesha ka dhaca anagu mas'uuliyadeeda ma qaadi karno kalmada waxa la hartiga Cergaabo halka markay hawshu marayso wa aqbaleen nimankan Cergaabo degan oo waliba Isaaq oo niman nabadda jecel weeye waa niman la kalifayo mooyaane laakiin nabadda xasha oo nabadda waa jecelihiin nabadda ciido baa jecel laakiin se niman maskax ku daro way aqligooda talaabada ay qaadimahan qoliyahan raaciyada ay habar jeclada waxa weeye hadii la kuuro habar awshu ay unikay habar awshu waxa weeye dabada ruuxa kuwaas wada waxa weeye halkan uma bad qabto oo garxajis bay ka cararayaan oo kursigan saara halkan niman dhul baahantay la yiraahdo cabsiya baa waligo inta noolaan qorta ka tagnaayo marka iyagu taawada ka duwan Muuse Ismaaciilku nabad waxay tahay garanayaan Muuse waa u tageen waxa ku dhaw Muuse magaalada Cergaabo gudaha ha u soo galin anagu nabad baan doonaa dadka aan usleynaa ma rabno hadii xabad lagu rido hadii dagaal dhaco anagu ma ka faala qaada kano halka ka imaan kara taa markay ku duulaya magaalada kantaroolkeeda galbeed ayay shacabka la isugu geeyay halkaas madaxtooyada ay ku leeyihiin oo magaalada ilaa 6-7 kilomitir u jirta halkaas uu tagay halkaas shacabkii wixii Isaaq ahaa ee waxa way dabada u ruuxayay ay ugu tageen halkooda ku niikiyeen laakiin Cergaabo gudaha ay u soo galeen Muuse loogu niikiyay ma jirto bal muuqaalada fiiriya bal Ilaahay baa idinku dhashay bal muuqaalada fiiriya muuqaala Cergaabo gudihiisa Muuse lagu soo dhaweynay hadaad keentaan oo lagu soo mishin gareysaan marka daana khaldan طبعا bal muuqaalada dib u raaca de magaalada banaankeeda hadii magaalada waxa leeyahay meel beerta xorriyada ay suuq yimaadaan oo Cergaabo markay wax ka jiraan wax weyn laga khudbadayo haduu Cergaabo yimid ama uu gudaha u soo galay walaalayaal maxaad gudaha muxuu halka u imaan waayay muxuu uga khudbadan waayay Cergaabo Muuse Bixi tagay ama ka khudbaday ma jirto magaalada banaankeedu jooga ma la soo gali karo taana anaga aan nidhi Cergaabo gudaha uma soo gali karo taana amarkeeda anaga aan nidhi aadiyaad taasna sidaas loo socdo waa jirta horgolo wax la qaran kara ma aha hartiga oo ku hawlan inay Muuse caawa la kulmaan
ومدحتويada magaalada 7 kilomitir u jirta in lagu geeyo ciidayihiin magacyadooda sawirradooda liiska waa laygu maqan yahay wana la keeni doonaa iyagoo socda baa la keeni doonaa waxaan ballan qaaday halkan aad ka daawataan horgal cad quursi qaata oo harti leh oo ama waxa weey dal guursigeli ah ama dhulbahanta hawsha ku hawlan halkan aad ka daawan doontaan dabagal baan ku haynaa nin kasta sawirkiisa cid la isu dhawanay ma jirto ninka muuso aynu ognahay halkan uu kala gaandhay waa inuu laas aanu isku dirirnay ninka u taga oo la kulma oo madax dhaqameed sheeganay oo cergaabo ku sugan oo la laguma oga oo raba inuu laaluush si hoos u qaato umada ku dhex jirmay umada waan ka dhex saarana qodobkaasi waa qodob intaas aan ku soo gabagabeynaya cergaabo waan inuu naqaanay muuse bixi cergaabo tay kara ama ka khudbadan kara ma jiro waana warkaas waa xaqiiq weey bal muuqaalada dib ugu laabta magaalada cergaabo muuse gudaha soo galo loo ninkan lagu soo dhaweeyay ma jirto taana waxa weeye dadka cergaabo wada degan ayaa dantooda ka dhaxarkay in nabadgelyo ilaashadaan waxa weeye hadii la kuurayahay isku dhacaan laga ilaaliyo qodobka labaad aan gudbay doona waxa weeye General Salaaman Barre Geesood taliyaha guud ee ciidamada militariga daraawiishta dawladda SSC Khaatumo ayaa shalay u jawaabay Nuux Ismaaciil Taani Nuux Basta Maxaane oo ay aad u sii qanaan wadaysitin hadalkiisii waxa uu sheegay maalin waatu si jiracsan u hadlay oo uu ugu hadlay hadii Ilaahay yiraahdo hadda waa ninkii markuu tukuraq joogay markuu dagaalku socday ilaa seefteedu iyo tiina waa tii saawir noqota ninkii faanayay ee baanayay maalintii uu og muxuu ka khudbaday hadii Ilaahay yiraahdo xadkayna waan tagayn hadii ila ninkii barqayn jiray tug baa gaadhay tugtaad Salaaman Barre Geesood generaalkii baa gaarsiiyay waa nin si fiican u garanaya wuxuu anigu marba Hargeysa tan ka yimaado xaafad tan ka soo dhaashto ciidamadeeda hubkii qoryaha kama ururiyo ciidankayga anigu baan waxa weeye hadii la ku dhex jiibsadaa baan furintay difaac kula jiraa waxa weeye hadii aad talaabo soo qaadana wallahi tii 25 ka ugu dhacday mid ka daran baa ku dhici doonta marka kale uu taliyuhu leeyahay ciidamadaada hubka ururisay maalintii dhoweed bay dhacday nimanka habar jeclo codadka waa daawatay midiyaha la geeyay waa isku aamini waayeen musabixi qasanadihii baa laga ururiyay rasaastii baa laga ururiyay kadib qasanada badan baa loo geliyay cidda ay ka baqayeen waa habar jeclo oo godolsan oo ragoodii la laayay oo saraakiishoodii waxa weeye maxaabiis qaariin qaarna ciid hoos maray waxa la burburiyay maanta waxa weeye hadii la ku ri qaxoonti ku ah burco iyo dhulka magaalooyinkii ay deganaayeen wada ciidan noqday oo ka wada qaxoon oo suuhdin wada noqday xarun dadka shacabka ka caagan magaalooyinkooda isu bedelay marka hubkii ciidankii hubkii rasaastii ka ururiyay si uu uga baqayay cabsi darteed marka Barre Geesood wuxuu ku baanay oo ku faanay inuu ciidamadiisu hareeyay bawlo joogo oo la dareen yahay oo aanu marba xaafad ka soo dhaashan cidii ku saxdo gubta dhulka SSC Khaatumo iyo ciidamada daraawiishta SSC Khaatumona ay diyaar u yihiin inay dacar leefsiiyaan hadalkaas waa hadal weyn weey aanu meenay mar labaad uu Nuux Taani soo hadlo meelo badan buu taliyu gacanta galin doonaa waana xoogaal taliyu xogta ciidamada jabhadda argagixisada sana buu hayaa qaababka ay guutooyinkoodu yahay buu yaqaanaa hubka ay haystaan buu yaqaanaa intii laga qabsaday waa u tiro kooban xogta ciidamada khawaarijta argagixisada sana dhab ayuu General Salaaman Barre Geesood gacanta ku haya maantana waa taliyaha guud ee ciidamada militariga ee daraawiishta dawladda SSC Khaatumo qodobka kale SSC Khaatumo ayaa gabiyaanba soo saartay warweyn wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka SSC Khaatumo Najiib Barkhadle Warsame ayaa maanta ku dhawaaqay war dadka reer SSC ay aad ugu farxeen warkaasi oo ah in dhammaan la mamnuucay deegaanada SSC Khaatumo magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha ay maamusho SSC Khaatumo inaan laga waxa weeye lala soo gali karo hub marka laga reebo laamaha ammaanka waxa la joojiyay dhammaan deegaanka magaalooyinka caasimadaha in aan la dhaxmari karin hub wala military haw wala wax rabtay haw ninkii militariga furinta iyo jiida ha tago halka hubkiisa kaga yimaado ninkii magaalada soo galay isoo shacab dharka shacabka wata waa in magaalada soo galaa waxa hubka loo galay waa ciidamada ammaanka laamaha ammaanka sharciyada u haysta ee booliis loo ogolay in magaalada hub la dhaxmaraan laakiin askari ka soo baxay hadii ku jiida oo magaalada u soo hawlo doontay oo tuqoon iska soo qaatay magaalada soo dhaxgalay ma jirto askariga lagu qabto sharciga la waafajinaya maxkamad military ma la saaraya sharciga Khaatumo nidaamka dawladnimo waa inuu shaqeeyaa go'aankaas la fuliyaa dabcan waxay badbaado u tahay caruurteena badbaado u tahay deegaankana badbaado u tahay mustaqbaliyan bay badbaado deegaankana u tahay waayo waa inay kala dambeyn
iyo waxa way ismaqal maamul weyn jiro weeye marka dawladda ugu mahadcelinayna go'aankaasi waa in la fuliyaa waana sharci weyn in la fuliyo oo dawladda shacabku ay la shaqeeyaan oo nidaamka ay la shaqeeyaan insha Allah ta'ala intaasna waa inta waqodob